الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوري إلهي سبحانه وتعالى مهدك وبعض سكلا وحالكا نقوم هذا علينا يا هجانك تريك عجانك عيد مدى أسلوب تجمهورية سوماليلاند يا هجانا ذاك الدوانا هالكن يلا تشوجا أن ما تشوجنو أن حبسي مش عسية اللي قلت لك إن عروت الشرع خلافته أن إحنا اللي برو أن لو نصو حرو سلو قصر نحصارو dadka waaweyn ku dhixran yihiin waxaan u mahad celinayaa taliyaha iyo taliye ku-xigeenkaba dadaalka iyo tacabka iyo dhismaha aadka u culus ee iskuulka leh ee xarunta dhaqan celinta leh carruurta lagu soo xirayo iyo hooygii leh ay ka muuqato in la geliyay awood fara badan oo wadaniyadeed waxaan uga mahadnaqayaa sida qiimaha badan leh ee mas'uuliyaddu ay ku jirto ay dhexda ugu xiran yihiin inay qarankooga iyo waajibaadka saaran gutaan ka wasaaradahan wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale ay khusayso waxaan halkan ka ballan qaadaynaa inaanu wixii awooda iyo wixii baahi aan soo aragnay halka yaalla inaanu qayb ka ahaan doono hadday noqoto iskuulka inaanu qalabayno inaanu keenno manhajkii lagu baranayay inaanu keenno imkaaniyaadkii waxbarashadu lahayd iyo sidoo kale inaanu ka howlgalno wasaaradaha kale ka dhiman ay ka mid tahay wasaaraddii beeraha oo deegaankani deegaan masna ah oo aad u qiimo badan oo biyo leh hadday tahay wasaaraddii ciyaaraha oo garoonkaasi sidii hawshiisa loo geli lahaa aanu ku dari doono qorshahan u gudbin doono iyo hadday noqoto sidoo kale wasaaradda diinta iyo awqaafta oo u baahan iyaduna ardayda iyo in carruurta lasoo xirayo ee sharciga khilaafa in diintoodii iyo dhaqankoodii la baro iyo sidoo kale wasaaraddii caafimaadka oo aad iyo aad iyaduna muhiim ugu ah bulshada halkan ku dhaqan oo ah bulshada aad u ballaaran si ay u helaan goob caafimaad sidoo kale xaruntu weli lahayd goob caafimaad oo maxaabiista lagu darayo xaaladooda caafimaad waa wax ilaahay loogu mahadnaqo weeyey goobtan waa goob taariikhiya dhismayaal taariikhiyo badan baa ku yaalla aad u qiimo badan waxaan u mahadnaqayaa dadka deegaanka oo beertan iyo dhismahan iyo deegaankanba u ilaaliya dhulkii dowladda inay tahay iyo ciidamada asluubta iyaguna runtii aad iyo aad duruufo kala duwan ku shaqeeyaan oo aaminsannahay inay ka go-an tahay wadaniyada dhabta ah iyo yoolka iyo hiigsiga qarankan hiigsanayo aad iyo aad baad taliya mahadsantihiin wixii halkan ku soo aragnay waajibkana waa ka gudan doonaa cidda khusaysana waanu la hadli doonaa iyo hay-adaha wada shaqaynta laba aad baad mahadsantihiin mas-uuliyad qaran baad haysaan waad ku hambalyeynayna xilka iyo mas-uuliyadda aad haysaanna waxaa la halkaa kasii labilaaba waa waajibaad annagana intana saaran insha allah waan gudan doonaa hadduu ilahay dhacdo isagu dhaqsaha badan leh aad u mahadsan. Assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.